السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا يوتيوب channel subscribe نوصار muuqaalkan like نوصار aad baad u mahadsantahay. War degdeg ah ganacsatada Muqdisho oo $2 milyan ku dhawaaqday inay ku caawinayaan walaalahooda Somaliland. daawasho waxan نستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن رئيس الوزراء ku-xigeen wasiirada gudoomiyaha bangiga dhexe ganacsatada sharafta badan ee dhamaantii waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan ka bacdi mudan ra'iisul wasaare waa kaaga mahadcelinaynaa kulankan qaaliga ah oo maanta aan noo qaban qaabisay. runtii kulan wuxuu ahaa sharaf leh oo dadka dhan qalbigooda uu ku jiray waqti ku habboon la qabtay. nasiibadu shalay dhacday maantana waa isaga nimid alxamdulilah. aadan kaaga mahadcelinaynaa kulankaas adiga wasiiradaadaba ay ganacsataduna si degdeg ah maanta uga soo qayb gashay. intaas markaan uga gudbo mahadcelinta waxaan rabaa marka u horeysa inaan idhaahdo walaalaheen dhibta ku dhacday masiibay ahayd. inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay bedel khayr qaba ilaahay ha siiyo. dadka wax ku xoolo beelana waxaan leenahay sabra waa musiibo waaye waana imtixaan rabbaani ah. shalay ilaahay wax ku siiya maantana kaa ashtay waana lagu samraa. waxaan rajaynaynaa ilaahay ducadeenaas waa bil ramadaan oo weliba kowdi ah waa imtixaan isleeyahay barnaamijka marka meesha ku soo aado aad fiiriso imtixaankana waxyaalaha loogu gudbaa waa bedelkiisu janno noqon doonaa insha Allah haddii la yiraahdo. marka intaas markaan ka soo gudbo waxaan rabaa walaalaheen reer Somaliland anaga iyaga iyo ganacsatadu meel walba waa degantahay xaggana waa degantahay intana waa degantahay waan isku halaanahay. markastoo dhibaato dhacdana shacabka waa u gurman jirna xaggana waa isugu gurmanaa intana waa isugu soo gurmanaa. markii noogu horeysa ma ahayn dhowr gooraan ay beledweyne yimaadeen ayagoo u gurmanaya Muqdisho yimaadeen ayagoo u gurmanaya anaga Hargeysaan tagnay anagoo gurmanayna. marka mar walba waa la iskaashadaa goboladu saas oo kale Puntland waa la isugu wada gurmadaa ayagu waa soo gurmadaa markay dhib dhacdo. marka waxaan leeyahay tiyo kale tawaaye ganacsatada Soomaaliyeed maanta oo halkan isugu timid wasaar isugu yaaray anaga oo soo tashanay waxaan waliba aysan ahayn tii ugu dambeysay. waxaan isla garanay ganacsatada inaan walaalaheen ku tabarucno oo dadkaas dhibaatoobay aan ku kaalmayno lacag $2 milyan ah oo ganacsatada Soomaaliyeed ay ku deeqayso reer Muqdisho ah oo rabna inaan ku tabarucno walaalaheen dhibka uu soo gaaray anaga oo markaas lacagta dawladda ku tabarucdo iyo mid anaga ku tabarucnaba ay noqon doonto mid hal mar la isla geeyo insha Allah haddii la yiraahdo. intaas kadib waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto. waa munaasabadaas oo hadda loogu talagalay waa tii ay dhibtaas dhacday ahayd laakiin isla Ramadaankii bishii Ramadaan hadda noo dhalatay ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkeenu waa dhiban yihiin abaaraa lagu jiraa waa la rafaadsan yahay. waxaan rabnaa fadlan xaaladan lagu jiro dadka in loo dhimriyo oo badaacadeenu ay raqiis noqoto oo dadka bisha Ramadaan la garab istaago oo badaaca jaban loo raqiisiyo ilaah ku adaf mudaaf ay noo noqonaysaa sidii oo Ismaan bin Affan iyo xilligoodii oo sadaqadu markaad badaacada aad ka gadato ilaahay inaad ka gadatay ku fiicantahay intaad dadka gadan lahayd. marka ummadana aan kaalmayno badaacadana aan raqiisino. adduunyadu waa kacda badaacadu waana qaaliyooday laakiin tii horaan haysanaaye aan bedelkeeda ilaahan warsanayna bil Ramadaan waa insha Allah taasna munaasabadan kuma jiro laakiin waa ku darsanaa